rajadana waa fiican tahay inkastoo Axmed runtii hogaamintiisu ay tahay hogaamin fashilan oo faashil ah oo uu ku fashilmay limaada waxa markaad fiiriso ninkii dhamaayo 6 sano meesha xukumayay oo madaxweynaha ahaa hadda waxaan ogsoonahay markuu barnaamijkii ku fashilmay inuu abaabulay jifo qabiila oo uu leeyahay meeshii waa lagu soo duuli reeqan sax baa nagu soo socda reeq qurac baa nagu soo socda hal diyaar garoobo oo uu la hadlay muxuu ahaa Yurub Mareykan uu la hadlay Khaliijka uu la hadlay Afrika uu la hadlay Kenya iyo Ethiopia uu la hadlay meel kasta uu la hadlay runtii ninkii waa nasiib darro waxa ninkii dhamaayo loo dhiibay Jubbaland oo 3 milyan iyo wax la jira ama muxuu ahaa 2 milyan iyo 800 iyo wax la jira oo qof tirakoob rasmi ma jiray qiyaasta hogaaminayay 6 sano oo madaxweynaha u ahaa dadkaasi inay ku filaan waayeen oo dad jifa ah oo yar uu raadsanayo oo uu rabo jifanimo in loogu soo gurmado meeshii ummadii inta la ekeedo xukumi lahaa aqliga noocaas oo sidaas u buka garashada noocaas oo saa u liidata muxuu ahaa fikirka noocaas oo noocaas doqonnimadu inta la ay ka muuqato oo faashilka miyaa xukumi kara ummad noocaas oo lagu aamini kara Jubbaland su'aashu waa maya markii la isweydiiyo taasaan rabnaa inaan uga gurmano Jubbaland burbur baa ku soo socda dib baa ku soo socda Axmed baana hormuud ka barnaamijka asaga burburka ku soo socda iyo dibka ku soo socda Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland baa hormuud ka taasaan rabnaa inaan uga gurmano wadajir baan rabnaa waxaan rabnaa midnimaan rabnaa horumar baan rabnaa amni baan rabnaa waxaana lagu gaari karaa in la wada fadhiisto oo la wada hadlo oo halka la isweydiiyo waxaan doonaynaa Jubbaland inaysan gadaal u soconin ay horay u socoto meesha maanta ay taagan tahay inay uga horay uga socotaan doonaynaa sidaa darteed waxaan leenahay anigoo ka faa'iideysanayo fursadan ayaa waxaan rabaa shacabka Jubbaland uu u sheegay warka aan jirin xasaasiyadda xambaarsan qabiilka xambaarsan waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam boosaneer ku tilmaamay duuha fa innaha mumtinna wa boosaneer buu yiri ka taga way uraysaa waxa uraysa uu ku buufinaya Axmed waxaan leenahay ma jirto waxaan ogahay anigu inta aan ogahay iyo xogtayda iyo waxa aan ka warqabo ma jiraan Jubbaland qabiil duulaan ku soo deegaan duulaan ku soo qolad duulaan ku soo ma jiraan Jubbaland waxaan leeyahay Axmed waxa uu sheegay wax ka jira male waa nabiga kaleey salaatu wasalaam tii uu ka digayay shacabka Jubbaland waxaan ugu baaqayaa anigoo ku hadlaya magaca muxuu ahaa golaha walaalayaal wadajir iyo midnimo ayaan u baahanahay dagaalkii hore Jubbaland ka dhacayna qabaa'ilka ma uusan dambaynin dawladii xilliga jirtay baa ka dambeeyay iyo shakhsiyaad gooni ah oo iyadu ku adeeganaysay haddana dadka Jubbaland diyaar uma aha inay dagaalamaan oo dhiig daadiyaan oo qax uu ka dhaco waxaa diyaar dadku ay u yihiin hoggaan fiican inay helaan midnimo inay helaan cadaalad inay helaan wadajir inay helaan amni inay helaan horumar inay helaan bay diyaar u yihiin hanti anigu waxaan dadkii u sacabtumay dadkii wax ka dhisay dadkii yani isku dayay inay wax noqoto laakiin kursigii markii la yiri ninkaana ugu xoog roon waxa markaa meesha jooga waxaanu kala dooranay 3 nin oo isku reer ah ayaanu kala dooranay Axmed Maxamed Islaan baanu meeshii geynay Axmed Maxamed Islaan kursigii markuu ku fariistay wuxuu isku wareejiyay awood oo mataqaan asaga u gaar ah ayuu isku wareejiyay waxa dhacday in la talin waayay waxa dhacday in wax la qaybsan waayay waxa dhacday yani wax يعني هرمر iyo wax yani isbedel in la sameeyo waay marka dibka sida u dhacay oo gobolada ka jira maamul goboleedyada oo dhan ka jira ba horta halkaan haysta halkaan waxa ku sii ziyaada ah Axmed Maxamed Islaan xaqiiqatan wuxuu helay opportunity ama wuxuu helay wax la yiraahdo chance oo mataqaanay ummad inta farale ku hogaamiyo oo uu yiraahdo mataqaanay aynaanka u qabto markii uu meel marahayo ayuu wuxuu aalays gareeyay maamul goboleedyadii kale si uu mataqaanaa ugu qariyo dhibka iyo mashaakilka iyo waxa uu sameeynayo hadeera waxa sameysmay maamul goboleedyo nidaam la yiraahdo sameysmay waxay ismoodeen ama uu mataqaanaa soo ka taliyay inay madaxweynayaal yihiin inay mataqaanaa hadii maanta federaalka yani wax isku qaban waayaan ay goostooda waxay rabaan ay u sameeysan karaan shuruuc gaar ah magaciisa gaar ah waxa meeshii soo galay